dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ku guuleysatay wax ka badan hal sano inaan la dhoofin xoolaha nool ee sida joogtada ah loogu dhoofin jiray Soomaaliya laakiin boqortooyada Riyadh hal sano kadib 1 milyan oo ari ah ayaa loo dhoofin doonaa bilowga bisha Arafo muhiimadan u nimi shirkan wuxuu ahaa in la hormariyo xoolaha Soomaaliyeed neefka ariga ah laga shaqeeyo maslaxadiisa ayaan u nimi waxa way wasaaraduna si muhiim ah oo nidaamsan ayay u wada barnaamijyadaas oo ah tayeynta xoolaha iyo iska waraynta ayuu ku saabsanaa kulankani walwal badan ayay arintan ku abuurtay ganacsatada xoolaha dhoofiso kadib shir hal maalin socday ay ku yeesheen magaalada Muqdisho shirkan waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo ganacsato ajaanib u badan Cabdikariin Cabdullaahi wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa ganacsatada u sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ku dadaalayso sidii loo soo celin lahaa xiriirka ganacsi ay Soomaaliya ay la wadaagi jirtay dalalka caalamka waxaad ogtihiin ganacsatada iyo dawladdu ma kala maarmaan waxaa jira hadda culeysyo badan oo ka jira ka ganacsiga xoolaha iyo oo haysta ganacsatada Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan mar kasta aan ka caawino wixii siyaasada oo caqabada oo ku yimaada ganacsatada ummadda Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan la siyaasadayn xoolaha Soomaaliya waxaan u nahay inay yihiin laf dhabartii waxaan ku raahdaa ummadda Soomaaliyeed inay yihiin baan u nahay waxaan rabnaa Soomaaliya markii dawladda ay dhacday siyaasadda waxa weeye iyo isku hayeen laakiin ganacsiga iyo maxaan ku raahdaa horumarka iyo dhaqaalaha lama siyaasadayn meel kasta dad maxaan ku raahdaa Soomaaliyeed baa tagay hanti bay ku samaysteen dawladaha Qatar Bahrain Imaaraadka Sacuudi Arabiya Yemen iyo Masar ayaa loo iibgeyn jiray xoolaha ay Soomaalidu dhaqato sida ariga geela iyo lo'da laakiin Sacuudi Arabiya waxay sheegtay in xoolaha Soomaaliya laga helay xanuuno badan Usman Farax oo kamid ah ganacsatada xoolaha u dhoofiyo wadamada caalamka ayaan weydiiyay sidoo uu arko go'aanka dawladda Sacuudi Arabiya waxa xoolaha kan imanka la joojiyay muddo aan ku qiyaasayo imanka exactly taariikhdii ma hubo laakiin waxaan ku qiyaasayaa inay imanka tahay muddo ilaa iyo 7 bilood ah way taagnaan xoolahani sababta loo joojiyay iyagu waxay ku sheegeen inuu yahay xanuunkan la yiraaho af Soomaaliga malaakuma lihinba Rift Valley ay iyagu ku sheegeen marka taasina ma aaminsan inay jirto waayo dadka Soomaaliyeed waa dad xoolo u bay haystaa waxaan cunaana waa xoolo marka cidda ugu horeysa ee waxyeeli lahaa waa dadka Soomaaliyeed ee cuna aan wax kala haysan marka waxaanu anagu qabnaa inay tahay wax siyaasadaysan ayaanu anagu aragnaa waayo haddii xooluhu ay xanuunsanayaan 850 kuna neef loo qaadayo xajka dee iyaguba xoolahan bay ka yimaadeen marka common logic baan aqbalayn wuxuu aqbali karaya maaha waxa uu weeye dadun somehow aad u malaynaysa in laga adkaaday oo dabeedna wixii la doono laga yeelayo neefka la rabana la qaadanayo markuu doonana xanuunsanayo laakiin ma aha wax dhaba oo jira maaha Aways Maxamuud Jilco Wartiyaan Muqdisho